welcome to the second session of Cooking with Somali Radio. My name is Anna and I'm with the University of Minnesota Extension, and I'm here with my coworker Angelica again. And kusoo dhawaada barnaamijkan oo ah barnaamij gaar ah, barnaamijkan oo loogu magac daray la kari cuntada raadiyaha Soomaalida. barnaamijkan ayaa waxa idin daadahayn doona anigoo ah Axmed iyo Anna iyo sidaas oo kale Angelica. Kusoo dhawaada. So today for our video, we are going to be making chicken suqaar with rice. So our ingredients for the chicken suqaar today are cubed chicken. We have potato, bell peppers, a chili pepper, carrots, onion, and for our spices, we are using pepper, paprika, turmeric, hawash spice, and curry powder. maanta waxaa la sameyn doonaa cuntada ay dadka Soomaalida u yaqaanaan suqaar ka, iyo waxaa la sameyn doonaa bariiska. suqaarka waxaa laga sameyn doonaa halkan waxaa ka muuqda oo hortiina yaala waa hilibka digaaga. qudaarta la isticmaali doono waxaa ka mid ah baradhada, barbaroonida, karootada, basasha iyo xawaajiyada noocyadooda kala duwan oo aanu idinku soo qori doono shaashada. And I will be in charge of making our rice for today. We'll be using basmati rice. And for our spices, we have cumin, curry also, cloves, cinnamon sticks, and some cardamom pods. Angelica ayaa iyadana sidaas oo kale waxa ay markaasi sameyn doontaa ama ay mas'uul ka noqon doontaa sameynta bariiska. bariiska ayaa waxa la yiraahdaa noociisa basmati, waa nooca bariiska, waxaana la isticmaali doonaa xawaajiyada kala duwan oo uu ka mid yahay qorfaha, dhagayaraha iyo haylka. marka kusoo dhawaada barnaamijkan. All right, so before we get started, we need to wash our hands and wash all of our produce. inta aan la bilaabin barnaamijka, marka ugu horeysa aynu iska dhaqno gacmaha, sidaas oo kalena aynu dhaqno cuntada aynu karsan doono. So let's get started. aynu bilowno. Today for our meat, we're going to be using chicken. And just a food safety note about any kind of meat, not just chicken. You don't want to wash off your meat under the sink or rinse it off before using it. This can lead to the raw bacteria particles splattering on the faucet or other dishes you have nearby the sink, which can lead to foodborne illnesses like salmonella. maanta hilibka aanu isticmaalayno waa hilibka digaaga. fariin ku saabsan xagga caafimaadka ee cuntada. hilibka laguma dhaqo halka tuubada biyaha ah. waxaa ku fidi karta bacteria alaabaha kale ee guriga taala, waxaana ka dhalan kara xanuunka bacteriyada ee loo yaqaan salmonella. marka ha ku dhaqin hilibka meesha lagu dhaqo weelka, oo sidiisa ayaa hilibyada noocay doonaan ba noqdaan loo jarjaraa. All right, so we have our completed chicken suqaar here. We're going to talk through quick how we prepared this today. So the first thing we did was cut up the chicken
into little cubed pieces. And remember, we did not rinse the chicken before we cut it, because that can lead to the raw bacteria particles splattering all over, which can lead to foodborne illnesses. So took the chicken out of the package, cut it up, and threw it in our skillet here with a little bit of oil. marka labaad ku soo dhawaada waxaanu ka hadlaynaa haddana sidii loo sameeyay maanta cuntada la sameynayay waxa ay ahayd hilibka digaaga oo ah cuntada loogu talagalay suqaar digaag ayaa maanta ay ahayd cuntada la sameynayay waxaan ka hadlaynaa qaabka loo sameeyay marka ugu horeysa hilibka oo maanta ahaa hilib la soo iibiyay hilibka digaaga waxaad ka fiiqaysaa bacda waxaadna u jarjaraysaa si aad u yaryar hilibka ha dhaqin isagoo xanuun ay ka dilaaci karo waxaad ka ilaalisaa ha dhaqin waxa uun aad jarjartaa haddii hilibka mararka qaarkood uu qabow yahay ama uu baraf dusha ka saaran yahay waxaad ka dhaqi kartaa bacda sare adoo biyo qabow ku dhaqaya. So while the chicken was cooking, I cut up the vegetables that we used today. So cut up the potato and the carrot into matchstick pieces, and also cut up the onion into slices. I then set those to the side and cut up the peppers that we used today, which included a red bell pepper, a green bell pepper, and a green chili pepper. marka hore waxa la karinayay hilibka digaaga waxa lala isticmaalay saliid yar sida ay markii hore ay xustay kadibna waxa ay bilowday marka ay hilibkii iyo saliidii ay isku dartay oo ay karsamayeen waxa ay bilowday in ay jarjarto qudaarta ay jarjaraysay waxa kamid ahayd baradhada waxa kamid ahayd karootada waxa kamid ahayd basasha waxa kamid ahayd barbaroonida oo labadiisa nooca cagaaran iyo nooca guduudanba leh. After I was done cutting the vegetables, we added in the spices that we used today. So that included hawash spice, turmeric, paprika, and salt. And then I let the chicken saute a little while with those spices to soak up the flavor. waxa ay isticmaashay xawaajiyo kala duwan waxa ay isticmaashay xawaajiga ay dadkeenu ay isticmaalaan sidaas oo kale waxa ay isticmaashay nooc kamid ah basbaaska oo aan isagu aanan kululayn oo isagu magaciisa la yiraahdo paprika waxa ay isticmaashay iyadana sidaas oo kale huruuda oo iyaduna lagu daray waxa ay kaloo ay ku dartay in yar oo cusba ah. Once the chicken had some time to soak in the flavors, I then dumped in the carrots, onions, and potatoes to let those cook for a few minutes. I also poured in some water and then covered the dish so that those vegetables could get a good steam. waxa kale oo la sameeyay waxa lagu daray sidoo kale qudaartii kale oo ay kamid ahayd kaaradkii oo ay kamid ahayd basashii iyo baradhadii ayaa waxa lagu daray qudaartii waxa lagu daray hilibkii digaaga iyo saliida waxa kale oo lagu shubay biyo yar waxaana lagu daboolay daboolka si ay u samaysato ay u karto. And for the last step today, after the initial veggies were softened a little bit, I added in the bell pepper and the chili pepper to let those just slightly soften so they still have a little bit of crunch when the dish is eaten. ugu dambeyntiina waxa ugu dambeysay oo lagu daray basbaaskii yara oo isaga iniinaha laga saaray iyo waxa lagu daray barbaroonidii waxaana loo yeelay si ay labadooduba ay u yeeshaan dhadhan qofka cunayana uu u dhadhansan karo afkiisa ka dareemi karo. Great. All right, so while we were preparing the chicken suqaar, we were also making the rice that we are going to serve with this today. intii la sameynayay hilibka digaaga ee aanu maanta ku cunayna bariiska dhanka kalena waxa laga sameynayay bariiskii. So that was my part in helping out with this delicious dish. So we were making basmati rice. So
The very first step that we did is actually measure out 2 cups of rice and put it in a bowl and wash it. We washed it until the water came out nice and clear. That ensuring that you take out the starch that's in the rice to make a perfect rice each and every time. qaybta aan anigu ku lahaana waxa ay ahayd cuntadan diyaarinta in aan inoo diyaariyo bariiska inta la sameeyay hilibka digaaga. bariiska noociisa waxa uu ahaa basmati nooca loo yaqaano. waxa aanu ka karinaynay maanta 2 koob. marka ugu horeysa 2 koob ayaa waxaanu ku shubnay baaquli kadibna waa la dhaqay bariiskii. So then after we set aside our rice, we went ahead and started measuring out our spices. So what we ended up doing is, first of all, we measured out the spices that needed to be ground up. So that would have been our 5 cloves. Then once those were nice and ground up, we added a teaspoon of cardamom, a teaspoon of salt, a tablespoon of cumin, a tablespoon of curry, and we mixed it all up, all our spices together. After that was done, then we went over to our stove, and in a pot we sauteed the spices with 1 tablespoon of oil along with the onion that we had cut up, and we sauteed those until it was nice and tender. The onion was nice and tender and it absorbed all the spice flavors. bariiska intii aanan la karin waxaa la jajabiyay ama la isku dhex daray qaar ka mid ah xawaajiyadii la isticmaalayay maanta. marka ugu horeysa dhagayaraha ayaa waxa ay ka qaadatay ilaa iyo 5 xabo iyadoo ay isku jajabisay dhagayarahaasi. kabacdina waxaa lagu dhex daray kabacdina waxaa ku xigay xawaajigii oo isagana lagu daray waxaa ku xigay oo isagana lagu daray kaarigi oo isaguna ahaa waxyaalaha lagu daray muraayadana waan idinka tusi doonaa haddii ilaahay idmo. ugu dambeyntiina waxaa lagu daray hayl isaguna markaasi ahaa nooca shiidan ayaa isagana lagu daray oo la isku dhex qasay si loogu dhex carfiyo bariiska. So after the onion was nice and sauteed along with the spices, then we went ahead and added our rice to it. We sauteed that, also not to the point of getting brown, but getting it nice and toasty. Once we got it nice and toasted, then we added our water to our rice. waxaa marka la sameeyay digsiga oo lagu shubay saliid yar oo qaanda ah ayaa waxaa lagu riday basashi kadibna waxaa dusha lagaga shubay xawaajiyadii la isku dardaray. kadib markii ay si fiican ay u kartay ayaa waxaa dusha lagaga daray bariiskii ayaa dusha lagaga daray kadibna waxaa lagu shubay biyo si uu u karsamo. All right, so we let our water boil, and once it got to boiling, then we turned down our heat to simmer, cover the pot, and let it cook for about 30 minutes. kadibna waxaa la sameeyay biyo ayaa lagu kordhiyay waa la daboolay waxaana laga dhimay kulkii badnaa si uu u karsamo waxaana la siiyay waqti ilaa iyo 30 daqiiqo ah. Now we just wait till the rice is done. waxaan sugaynaa iminkana inuu bariiskii karsamo. Great. Which it probably is. No, not yet. Oh. Not yet. But it needs to be good. okay. 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 Thank you for joining us today in the second video in the series Cooking with Somali Radio. Today we made our chicken suqaar with brown basmati rice. With this being such a common dish, it provides a really great opportunity to make some healthy changes to make it even a more nutritious and well-rounded meal. So for example, we used brown basmati rice today instead of white rice. So the brown rice is higher fiber as it contains the entire grain. So with that fiber, that is contributing to our heart health and our digestive health. waa ku mahadsantihiin inaad nagala soo qayb gashaan barnaamijkan oo ahaa barnaamijkii labaad ee lagu baranayay cunto karinta oon u bixinay la kari cuntada raadiyaha Soomaalida. barnaamijkan wuxuu ahaa cunto aad taqaanaan oo ay dadku yaqaanaan iyadoo isbedel yar oo lagu sameeyay oo laga dhigay cunto caafimaad qabta. tusaale ahaan cuntada maanta la sameeyay oo ahayd bariis iyo hilibka suqaarka ah
ayaa tusaale ahaan bariiska waxaa la doortay nooca loo yaqaano basmati waxa uu u wanaagsan yahay ayay tiri gabadhu wadnahayaga iyo sidaas oo kale wuxuu u wanaagsan yahay dheefshiidka caloosha oo waxa uu leeyahay fiber. Yeah, so high fiber foods, including the brown basmati rice that we used and also the variety of vegetables we use today, are important for helping to keep us feeling full and satisfied longer, which means that we're less likely to fill up on foods that are less nutritious for us. sidaas oo kale marka la isticmaalo bariiskan oo kale iyo qudaaro kala duwan la isticmaalo qofka wuxuu siinayaa calooshiisa inay buuxdo oo kale uusan marka qofka ay qabanaynin baahi degdega oo u baahdo marba inuu wax cuno. Another change we made today was instead of using beef, we used cubes of chicken. So chicken is considered to be a lean protein, and lean protein sources contain a similar amount of protein compared to their beef counterparts, but just have a lot less fat and calories in them. tusaale ahaan hilibka oo kale halkaanu isticmaal lahayn hilib lo waxaanu isticmaalnay hilibka digaaga hilibka digaaga wuxuu leeyahay dhinac borotiinka uu hilibku uu leeyahay lo'da oo kale hase ahaatee laakiin malaha habe baruur iyo waxyaalaha dadka u saacidin kara jirkoodu inuu baruur uu yeesho. Lastly, we used a variety of different vegetables today, including red bell pepper, green bell pepper, green chili pepper, onion, carrot, and potatoes. So using a variety of different color vegetables helps ensure that we're getting a variety of different nutrients and minerals in our diet. sidaas oo kale waxaanu isticmaalnay qudaaro aad u kala duwan ayaan isticmaalnay oo iyaguna kala midaba ah taasoo qofka siinaysa waxyaalaha uu nafaqada uu jirkiisa u baahay. waxaa la isticmaalay basal baa ku jirtay, barbaroonidii baa ku jirtay, baradhada ku jirtay, karootadii baa ku jirtay. waxaas oo dhan qofka bini'aadanka waxay siinayaan caafimaadkiisa jirkiisa waxay siinayaan nafaqo uu u baahan yahay. Another thing we did today was we left the skin on the potatoes instead of peeling it first. So we made sure to scrub the potato really well when we were washing it to get any dirt off. But the peel of the potato has a lot of nutrients in it, including iron, which helps to transport oxygen throughout our bloodstream and our body, and also potassium, which helps with our metabolism and also helps our body to use the energy that we're getting from the food. isbedelka yar oo aanu sameynay waxaa ka mid ahaa sidoo kale baradhada waxaa lagama fiiqin qolofka sare waa loo daayay waxaana loogu talagalay sida aad arkayseen markii horeba in si fiican bay u dhaqday baradhada korkeeda waxaana loo daayay qolofta sare ee baradhada waxay leedahay waxyaalo qofka u wanaagsan sida ironta iyo potassiumka. irontuna waxay u wanaagsan tahay qofku in uu dhiigiisa jirka uu si fiican wareeg u sameeyo ayay u wanaagsan tahay. So thanks again for joining us today in our Cooking with Somali Radio video. We hope you enjoy. aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tihiin inaad ka soo qayb gashaan barnaamijkan cunto karinta ahaa. waa barnaamij cod ahaana ka baxa raadiyaha KZYS ee magaalada St.Cloud. muuqaalkiisana aad ka daawan doontaan Aflax Online. So you can catch these videos on Aflax Online and tune in also to the radio broadcasts where we talk about more nutritional topics and buying local food on KZYS. marka waxaad ka daawan doontaan barnaamijkan muuqaal ahaan bartayada Aflax Online-ka ee waxbarashada aan ugu talagalnay maadaama barnaamij waxbarasho uu yahay isagoo cod ahaan waxaad ka dhageysan doontaan raadiyaha KZYS oo magaalada St.Cloud laga dhageysto. aad baad u mahadsantihiin.